Kooxda Bayer Leverkusen ayaa sanadkan waxay dhigaysaa taariikh aan kooxaha Yurub hore u dhigin. 49 kulan ayaan laga badin kooxda Bayer Leverkusen. Sidoo kale, sanadka waxay noqdeen kooxda ku guuleysatay horyaalka dalka Jarmalka waliba taariikhda markoodii u horeysay. Sidoo kale, Bayer Leverkusen caawa waxay noqotay in Europe League ay finalka iska xaadirso iyadoo Atlanta ayaa isku arki doona. Caawa hadaynu ciyaartan eegto u dhaxaysay Roma iyo Bayer Leverkusen. Horta ciyaartii hore ee ay labada kooxood kulmeen, kooxda kulankii hore ee Europe League waxa 2 gool iyo xog soo badisay kooxda Bayer Leverkusen. Caawa laakiin waa laga naxsaday. Cidhidhi baa la geliyay. 2 gool baa laga dhaliyay penalties. Laakiin inay koox sanadkan meel u socdo oo Yurub ka qaaliya yihiin Bayer Leverkusen iyo tababarahan Xavi Alonso way muujiyeen. Waxay soo bandhigeen horta kubadda aad u qurux badan runtii. Sidoo kale way u qalmeen inay xataa badiyaan. Laakiin arinta cajiibka way naga sheegnay oo taariikhdoodii lagama jabin oo 49 kulan oo aan laga badin ayay caawa xaqiijiyeen. Sidoo kalena rikoorka iminka iyaga haya inaan 49 kulan wax guul darra aanay la kulmin. In positionka waxa haysatay kooxda Bayer Leverkusen oo 60% kubadda iyada maamulaysa. Laakiin labada gool ee aynu sheegnay ayaa laga dhaliyay. Dad badan waxa islaayeen ciyaartu 2-0 ku dhamaanasayo. Nimankan waxa weeye taariikhdii ay wadeen ee ah inaan sanadkan xilli ciyaareedkan laga badin. Halkaasay ku soo gabagabayso Roma soo xidhay. Hase yeeshee iyaga laftooda taariikhda way ku xisaabtamayeen. Way iska celiyeen 2 gool ba dhaliyeen. Waliba goolasha waxay dhaliyeen daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta oo midna 82 bay dhaliyeen oo Roma iska dhaliso on gool bay noqotay. Sidoo kalena daqiiqadaha dheeraadka ciyaarta lagu daray ayay barashada keeneen 2-2 ay ku soo dhamaatay. Marka aggregate-kii kulankaasi wuxuu ku soo dhamaaday 4 gool oo Bayer Leverkusen iyo 2 Roma. Sidaas ay ugu baxday finalka Europe League ee sanadkan. Fursadii ugu fiicnaa la kala helay. Horta kuwa halista ee goolka noqon karay Bayer Leverkusen waxay heshay 13 halka ay Roma heshay 7 kaliya. Marka hadda inay gool badan ku dhaliyeen waa arkaysan muuqato laakiin nasiibku ma saamixin. Ala kulli xaal finalna way gudbeen wayna ilaashadeen rikoorkii ma garanaysaa inaan laga badin kulamada aynu soo sheegnay. Kornayaasha waxay kala heleen 8 bay heshay Bayer Leverkusen, kooxda Roma 4 bay heshay. Marka nimankan Bayer Leverkusen waa u qalbeen halkan inay gaaraan. Waa u qalbeen inaan ma garanaysaa rikoorka ay wadeen xilli ciyaareedkan aan laga jabin. Marka sidaasna waxay isaga xaadireen finalkii Europe League ee sanadkan. Waana loo saadalinay inay ku guuleysan karaan.